السلام عليكم أصحابتي سناب شات. حرجينا هنا في عنتين أنا سيدوك لو بعدين في عنها ما توحنا هي موضوع حساسية. waxaa jirta oraah khuraafaad ah oo dhahaysa waxaa tahay sida lagu arkay ma tihid sida isu aragtid. oraahdaas waxay dhiirigelinaysaa in aad afcaashaada iyo afkaartaada iyo ahdaaftaada aad ku qancisid dad kale, taasna waa khatar weyn. sida dadku ku arkaan waxa uu kala qaadaynaa labo: mid waa wax saxan oo khalad adiga aad samaysay ah, midna waa qof raba siduu rabo inaad noqotid. waxyaabaha khaldan ee ka muuqda ama dadku ugu sheegaan waxaa mudan horta marka koowaad inaad dib isugu noqotid aad soo hubisid, kadibna hadday khaldan yihiin aad saxdid. laakiin hadday yihiin afkaar dad kale ay rabaan inaad noqotid sida ay jecel yihiin ha ogolaan, waayo waxaad noqonaysaa qof qaada heesta ay jecel yihiin, waxayna saameyn ku yeelanaysaa noloshaada oo dhan. waxaa laga yaabaa ahdaaf iyo waxyaabo aad hiigsanaysid inaad uga tanaasushid si aad dad kale u qancisid. yoolasha aad hiigsanaysid iyo waxyaabaha aad aaminsan tahay waa waxyaabo dhagax dhig u ah noloshaada oo dhan. haddaba ha u ogolaan qof kale in dhagax dhigga noloshaada uu asagu dhigo, waxa uu jecel yahayna uu kugu socodsiiyo. dadka doonaya in afkaartooda ay kugu hogaamiyaan waxay kugu soo gaban doonaan qabiil, diin, wadaniyad iyo wixii la mid ah. haddaba ka digtoonow oo ka feejignow dadka noocaasa, waayo waa khatar, waxayna galaafteen wadamo badan oo dunida ku yaala. yeelana aqoon aad ku kala saartid waxa xaqa ah iyo waxa qofku rabo in uu kugu hogaansado oo kugu kaxaysto. intaasna waxaa ku dhan casharkaygii maantay. fadlan haddii aad ka heshay snapskan la wadaag asxaabtaada si ay iyaguna uga faa'iidaystaan oo ay badbaadaan.